waxaa guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland looga fadhiistay imtixaanka shaqo qaran kaasoo ay u fadhiisteen magaalada Laascaanood dugsiga Muuse Yuusuf arday gaaraysa 134 arday waxaana saaka kormeer ku tagay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar iyo waliba maayirka degmada Laascaanood halkaana waxaa warbixin ka siiyay imtixaanka saacada uu bilowday iyo inta arday u fadhiday gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool gudoomiye iyo maayirka magaalada saaka waxaa halkan furmay imtixaankii shaqada qaranka si wanaagsan baa runtii loogu socotaa waxaa imtixaanka noo galay waxaanu filaynay ilaa 200 inay noo gasho imtixaanka laakiin saaka waxaa noo yimi 140 toddoba kalaas oo min 20 baa noo fadhiya shaqaduna si fiican bay u socotaa ardaduna niyadoodu aad iyo aad bay u fiican yihiin oo imtixaanka waa qaar wareysay waxay leeyihiin waa ku najaxaynaa marka soo dhikii examinerka gaas baa la yidhaahdaa waa dhikay imtixaanka inoo waday gaas waa gudoomiyihii gobolka marka gudoomiye soo dhawow shaqadiina aad bay u socotaa dee waa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Laascaanood oo sheegay ardaydan u fadhiday imtixaanka inay yihiin ardaydii codsiyada ka soo dhiibtay barnaamijkaasi shaqo qaran ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hogaaminayso gabagabadii gudoomiyaha gobolka Sool isagu soo maray galaasyada ardaydu ay imtixaanka ugu fadhiyaan ayaa ugu baaqay guud maanta ka bilowday aad iyo aad baad u fiicantii laakiin aad baa lagu xumay tiradii maalintii hore isqortay 280 baa isqoray 240 qof baa la siiyay gobolka 280 baa isqoray intaas imtixaanka in lagu kala saaro maanta inkastoo waqtigu gaabnaa haddana kala bar baa jooga waa kala bar almost waxaanu sameeyay marka 240 iyo kunta shaqadii loo qaatay 300 markay iskeenaan gobolka wax badan inay iska bedelaan toddoba maalmood oo wasaaradda waxbarashada iyo gobolka iyo degmadu ku bixinayeen ilaalin la sameeyay la wareejinayay waa ka xunaa dadka intii la qoray shaqada loo diyaariyay meeshii degi lahayd loo diyaariyay waxbarashada loo diyaariyay haddana aan maanta imaan waa nasiib daro sinbuu wuxuu yiri cidda boodhimataana ka naxay qof dambe waraaqasitay baan xafiisyada ku wareegay oo imaanayn oo dhibaato aan iga hayn qof dambe shaqo doonayo reer Sool baan xafiiska ugu imaanay calaalkiisa damaana dhageysanay taa baa iga fudaatay 300 oo qoys baa la siiyay 200 lama dhaw maanta waxa buuxa macal kuntii qof marka lagu daro waxa dambe aan madaxweynaha ku dhibaa wasaaradda ku dhibaa shaqaha la siiyay reer Sool taa baan naga yaraatay haddaan nahay maamulka gobol iyo degmaba aad iyo aad baan u soo dhaweynaa qolada imtixaanka qaadaysa wasaaradda ka socota iyo waxbarashada heer gobol aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkiina ka sii wada shaqo wacan baad qabateen weydinku mahad celinayna waan idinku bogaadinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وبرخض عمر أحمد البانتا دولة جمهورية الصوماليلان Laascaanood